الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. waxaan jeclahay maanta waa maalin murugo weeye inaan tacsiideeyo on ka tacsiideeyo dadka reer Soomaaliya especially dadka Muqdisho dilkii foosha xumaa ee shalay ka dhacay hotelka Afrika. waxaan si gaar ah u tacsiideynayaa geerida ama dilka ku yimi General Galaan oo ahaa raggii geeshkii Soomaaliya ciidankii Soomaaliya Somali Republic maaha Soomaaliya Somali Republic agaa u taagay oo ahaa nin geesi ah dagaalkii 77 waxaa ninkii ilaa Kaaramarle gaadhay buu ahaa waxaa nin taariikhi hayay encyclopedia ahaa waa minarkii qore ku harsanaa ee taariikhda Soomaaliland iyo Soomaaliya iyo guud ahaanba arrimaha Soomaaliya geeska xogogaalka ha marka waxaan leeyahay toosa gaala taladiina ma hayso farmaajo ma hayo taladiina gamciinay ku jirta taladiina gacanta ku qabsada wixii ka dhimana Soomaalida kala idila diyaar baanina laakiin qadiyada ka dhigay qadiyad aleediin oo idugu hormuud ka tihiin ka dhiga markaas aan uga gacansiin doona laakiin Mareykan baa halkan hadlay Turkiga baa halkan jooga Qatar baa halkan joogta taladin meeday 1994 markii dagaalka sokeeyay ka dhacay Soomaaliland ayaa nin German wuxuu nagu safiri hadaa maanta taladiina gaadho weydaan wax iman doonto maana adoonsaan heshiisaan laakiin taladiinu gacmaha ka baxdo oo gacmaha kala gasho maanta taladiinu gacmaha kala gasho Ethiopia gasho gacanta ku haysa Kenya gasho gacanta ku haysa Mareykan baa gacanta ku haya Qatar baa ku haysa Turkiga baa ku haya wax gacanteeda ku jira ma jiro inta danteeda wadata dan Soomaaliyeed iyo dan Soomaali mid ma wato iyo dan banaadir waxaan leeyahay waan ka tacsiinaa ilaahay jannada ka waraabiyo dadka leeyahay galaalna waxa weeye taariikh buu leeyahay waa in meel ugu magacoodaan xus loo sameeyaa iyo inta kale dhimatana ilaahay sabri inaan ka siiyo dadkeena assalaamu calaykum wa rahmatullahi Allah u naxariisto General Maxamed Nuur Galaal waxaa naga baxay runtii geesi qaali ah halgamaa weyn taariikhda ummadda Soomaaliyeed qayb weyn ka galay waxaan maanta luus gareynay oo runtii naga lumay taariikhdii ummadda Soomaaliyeed iyo taariikhdii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo labadaba uu xambaarsanaa baa maanta naga lumay waxaan rajaynayaa ehelada iyo qarabada ka dambaysa buugtii iyo qarankii wuxuu ka tagay inuu hadiyeyso ummadda Soomaaliyeed maxay ayagu u shaqeynayay waxaan leeyahay General Galaal ha u naxariisto muddo badan buu u shaqeynayay qaranka khaasan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo uu ahaa runtii dagaalkii 77 iyo wixii ka horeeyaba qaybta uu ka qaatay nin waliba og yahay qayb aad uu ka qaatay indhaha ciidanka ama sahanka ciidanka xoogga dalka Soomaaliya si gaar ah loogu xasuustaa waa ninka abuuray hay'adda nabad sugidda ciidamada ama hay'adda warsirdoonka ciidanka ilaa heerka ugu sareeya ay gaartay oo la yiraahdo madaxda hoggaanka guud ee sahankana ka gaaray qaybaha meel walba ka soo shaqeeyay dhammaan waxaan ku leeyahay Galaal taariikh weyn buu uga tagay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan rajaynayaa dhalinyarada ku hartay maanta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed inay xasuusnaadaan baarana taariikhdaas guud ahaan waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed samir Allah ka siiyo xaaskii iyo caruurtii iyo qaraabadii iyo ehelku ka tagayna samir Allah ka siiyo annagoo dhan samir laga siiyo halkan waa masaajidka isbahaysiga waxaa salaada janaasada maanta lagu dukaday Allah u naxariistay General Maxamed Nuur Galaal oo kamid ahaa dadkii shalay ku geeriyooday weerarkii lagu qaaday Hotel Afrika halkan waa masaajidka isbahaysiga salaada janaasada mas'uuliyiinta kula dukatay waxaa kamid ahaa ra'iisul wasaaraha dalka Maxamed Xuseen Roble gudoomiyaha gobolka Banaadir xildhibaanada labada gole mas'uuliyiin kale oo ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya golaha xukuumadda wasiiro ka socday waxaana inta badan ay ka wada hadlayeen isla markaana sheegayeen inay aad ugu xun yihiin geeridan xanuunka badan ay ku timid jarnaalka isla markaana tilmaamay in uu yahay haliyay ummadda Soomaaliyeed ka wada baxay إنا لله وإنا إليه راجعون عن أمة الصومالية guud ahaan inaan u tacsiyeeyo gaar ahaan ahalkii iyo
qaraabadii iyo carruurtii walaalahay uu ka geeriyooday jenaraal maxamed nuur galaal oo ahaa qof nin Soomaaliyeed oo taariikhda Soomaaliyeed baal weyn uga jira waqti dheer ummaddan iyo waddankan maxaa la yiraahdaa u soo halgamay meel fiican soo gaarsiiyey maantana waxay noqotay xalay inay waqtigiisii uu ku dhamaado halkaas ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu jannadii firdawsi ka waraabiyo ahalka iyo ummadda Soomaaliyeedna dhammaan uu ka siiyo sabar iyo iimaan uu ka siiyo wuxuu ahaa qof taariikhda Soomaaliya qayb weyn uga jira bismillaahi raxmaani raxiim inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun marka hore waxaan tacsiyeynaynaa dhammaan ummadii muslimiinta ahayd ee Soomaaliyeed kooxaha argagixisada ay xalay ku beegsadeen hotel Afriik dhammaantood intii geeriyootay waxaan leenahay Allah u naxariisto inta dhaawacana Allah u boogadhayo waxaan si gooniya ugu sii tacsiyeynaynaa geerida ku timid halyeeygeena jenaraal maxamed nuur galaal Allah u naxariistee runtii nin taariikh weyn oo taariikh fac weyn ku leh ahaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed difaaca dalkiisa runtii waxaan ku xasuusan doonaa jenaraal maxamed nuur galaal dad badan oo la mid ah waddankan mar hore isaga tageen inuu dadkii waddankan joogay oo marnaba ka tegin uu ahaa u diyaar garoobayay difaaciisa iyo ilaalintiisa waxaan aad iyo aad uga xanuunsanaynaa runtii geeridaas aan ahalka iyo qaraabada iyo intii uu dhalay iyo intii uu ka tegayba waa uga tacsiyeynaynaa ummadda Soomaaliyeedna uga tacsiyeynaynaa waxaan si gaar ah dareenkan u gubaya inay tahay inuu ninkaasu ahaa taariikh Allah u naxariisto jenaraal maxamed nuur galaal waxaa naga baxay runtii geesi qaali ah halgamaa weyn taariikhda ummadda Soomaaliyeed qayb weyn ka galay waxaan maanta luus gareynay oo runtii naga lumay taariikhdii ummadda Soomaaliyeed iyo taariikhdii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo labadaba uu xambaarsanaa baa maanta naga lumay waxaan rajaynayaa ehelada iyo qaraabada ka dambaysa buugtii iyo qarankii wuxuu ka tegay inuu u hadiyeyso ummadda Soomaaliyeed maxay ayagu u shaqeynayay waxaan leeyahay jenaraal galaal ilaahay u naxariisto inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun ilaahay ha u naxariisto jananka jenaraal galaal sida uu sheegay taliya indhaqarsho wuxuu ahaa nin dalkiisa u soo shaqeeyay ayuu ahaa run ahaantii waxaa lagu xasuusan karaana waxaa weeye halgankii waddankan Soomaaliya xornimadeedii iyo dowladnimadeedii iyo maxaan ku raahdaa ragga guunta u dhigay ayuu ka mid yahay inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun runtii waxaan leenahay wixii shalay ka dhacay hotel Afriik waxay ahaayeen wax markaasi dhibaato iyo murugo ku ah shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan runtii uga tacsiyeynayaa dhammaan intii ku dhimatay intii ku dhaawacantayna ilaahay waxaan uga baryaynaa ilaahay inuu u boogadhayo khaasatan jenaraal galaal oo runtii aan uga tacsiyeynayo dhammaan ehelkiisii iyo asxaabtiisii iyo ciidamadii xoogga dalka Soomaaliyeed uu ka tirsanaa oo aan isleeyahay oo uga tacsiyeynayo dhammaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed salaada janaasada kadib ayaa meedka jenaraal maxamed nuur galaal waxa loo qaaday garoonka diyaaradaha aadan cadda waxaan la filayaa in maanta gelinkii dambe lagu aaso Allah u naxariistay magaalada Gurceel oo halkaasi uu ka soo jeedo inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun aan ummadda Soomaaliyeed guud ahaan oo tacsiyeeyo gaar ahaan ahalkii iyo qaraabadii iyo carruurtii walaalahay uu ka geeriyooday jenaraal maxamed nuur galaal oo ahaa qof nin Soomaaliyeed oo taariikhda Soomaaliyeed baal weyn uga jira waqti dheer ummaddan iyo waddankan maxaa la yiraahdaa u soo halgamay meel fiican soo gaarsiiyey maantana waxay noqotay xalay inay waqtigiisii uu ku dhamaado halkaas ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu jannadii firdawsi ka waraabiyo ahalka iyo ummadda Soomaaliyeedna dhammaan uu ka siiyo sabar iyo iimaan uu ka siiyo wuxuu ahaa qof taariikhda Soomaaliya qayb weyn uga jira qayb ka mid ah taariikhda Soomaaliyeed maanta halkaas beejkeedu ku laamay ayuu noqonayaa jenaraal maxamed nuur galaal jenaraal ummadda Soomaaliyeed waqti badan wuxuu kifaaxay waddanka difaacidiisa iyo howlo badan buu soo qabtay mas'uuliyado badan ka soo qabtay famila oo xaas iyo 6 carruur ka tagay iyagana waxaan rajaynaynaa maama Saciido iyo dhammaan
walaalahay ilmaha kulligood inuu sabir iyo iimaan naga wada siiyo kulligan marka waxaan leenahay inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun waa geeri taabanaysa ummadda oo dhan taabanaysa weeye kulligan taabanaysa aniga laftigay gooni ahaan ii taabanayso ka qoys ahaan ii taabanaysa ayay ahayd marka inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun marka hore waxaan tacsiyeynaynaa dhammaan ummaddii muslimiinta ahayd ee Soomaaliyeed kooxaha argagixisada ay xalay ku beegsadeen Hotel Afrique dhammaantood intii geeriyootay waxaan leenahay Allah u naxariisto inta dhaawacana Allah u boogadhayo waxaan si gooniya ugu sii tacsiyeynaynaa geerida ku timid halyeeygeena Generaal Maxamed Nuur Galaal Allah u naxariistee runtii nin taariikh weyn oo taariikh fac weyn ku leh ah ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed difaaca dalkiisa runtii waxaan ku xasuusan doonaa Generaal Maxamed Nuur Galaal dad badan oo la mid ah wadankan mar hore isaga tageen inuu dadkii wadankan joogay oo marnaba ka tagin uu ahaa uu diyaar garoobayay difaaciisa iyo ilaalintiisa waxaan aad iyo aad uga xanuunsanaynaa runtii geeridaas aan ahalka iyo qaraabada iyo intii uu dhalay iyo intii uu ka tagayba waa uga tacsiyeynaynaa ummadda Soomaaliyeedna uga tacsiyeynaynaa waxaan si gaar ah dareenkan u gubaya inay tahay inuu ninkaasu ahaa taariikh gaar ahaan ummadaha taariikhyadoodu waa kala duwan yihiin taariikhda xoogga dalka Soomaaliyeed oo nool buu ahaa intii hadda ama laga duubay ama laga qorayna waa ilaahay maadiis intii kalena ma nasiib looma yeelanin waa u tacsiyeynaynaa ummadda Soomaaliyeed in ilaahay culayskan ka dulqaadana waa rajaynaynaa dhammaan ahalka iyo qaraabada